maanta waxaan halkan u joognaa in aan markhaati ka noqono kulan muhiim ah oo lagu kala saxiixanayo memorandum of understanding oo ka dhaxeeya Hormuud Telecom iyo hay'addan Germaniga ah ee muhiimka u ah wada shaqaynta dowladda Soomaaliya ee private sector-ka. waxaan rabaa inaan marka hore u mahadceliyo Hormuud Telecom roolka iyo shaqada fiican oo ay markasta maalgashi iyo service iyo shaqo ay Soomaali u hayaan ama shacabka Soomaaliyeed iyo dalkeen laba ay ka hayaan. sidoo kale waxaan ugu mahadcelinaa muhiimadda ay u leedahay inay ka gudbeen Soomaaliya oo ay adduunyadii kale iyo wadamadii kale u gudbeen qaasatan regionalka iyo East Africa iyo ilaa Europe hadda inay tagaan ay ka shaqeynayaan inay isdhaxgalkii dowladda Soomaaliya iyo private-keeda laga rabay inay matalayaan ayadana aad iyo aadaan ugu mahadcelinaya. kulankan maanta halkan ka dhacayo waxay tusaale u tahay in Soomaaliya private sector-keeda suuqii localka ah ay ka gudbeen ay u gudbeen adduunyadii kaleento mid heer gobol iyo mid heer caalami ah intaba inay diyaar u yihiin oo Soomaaliya inay ku biirto bulshada Afrika shirkadaha ka faa'iideysan kara ee awood iyo cudud u leh aqoon tiknoolajiya skills community oo baalka ee shaqaale xoogan oo ka bixi kara intaba waa example-ka ugu fiican ee shirkad Soomaaliyeed ay ku matali lahayd Soomaaliya. waxaan rabaa inaan ku bogaadiyo roolkaas. sector-ka maanta halkan oo qaasatan isfahamkan la kala saxiixanayo oo aan u joogno ah arrimahan digital transformation-ka ayadana waa arrin muhiimadeeda iska leh oo la rabo in Soomaaliya ay u diyaar garowdo halka loo guuray oo ah shaqo kastoo la qabanayo ama ha noqoto dowlad ama ha noqoto private ama de sector-ka oo private-ka in loo baahan yahay muhiimadda ay leedahay in guulo waaweyn laga gaaro in dalkeena oo u guuro digitalization-ka adduunyada ay u guurto oo aan heer gobolna diyaar ugu nahay heer maxaan ku dhahaa dalna diyaar u nahay heer caalamina aan diyaar u nahay. sidoo kaleento arrimaha serviceskaas quruxda badnana waa inay dadka dhan inclusive u tahay oo dadka elite-ka iyo dadka lacagta leh iyo waa inaysan bis ka faa'iideysanin oo muwaadiniinta oo dhan ha ku noolaadaan magaalooyinka waaweyn ama ha ku noolaadaan meelaha fogfog baadiyaha iyo tuulooyinka. service-yadaas hadda aan ka sheekeynayna ama adeegaasna inuu marka hore intaba laga sheekeeyo Hormuud baa waxay u ahayd aabbe iyo hooyo. waa ogtiin Soomaaliya marka laga hadlaayo access-ka internet-ka loo leeyahay dadka suurageliyay inay number 1 raqiis noqoto meelo fogfog oo Soomaaliya inay gaarto oo lagu xisaabtamay in shaqo kastoo la qabanayo access loo yeesho hooyo iyo aabbo waxa waa Hormuud marka aad iyo aad aan idinka magacinaynaa. waxaan rabaa qof kasta doorka oo ku lahaa framework halkan lagu saxiixayo iyo memorandum-kan halkan lagu saxiixayo inaan ugu mahadceliyo. waxaad kaliya kor uma qaadan shirkadda Hormuud iyo Telecom iyo umashqaad waxaa kor u qaadeen sector-ka private-ka Soomaaliya in la aamini karo oo wadan weyn oo Europe ah inayna aaminaan inay heshiisna la galaan inaad suulo gelisaan adinka marka waxaad qayb ka tihiin economic development-ka dalka Soomaaliya. waxaa kor u qaadeen dalkeen in la maalgashan karo kalsoonida dalka Soomaaliya lagu maalgashan karo. waxaa kor u qaadeen in waxna lagu darsan karo. waxaan markasta ugu mahadcelinaynaa annagana aan diyaar idinla nahay roolka dowladda ugu baahan tihiin inaad Soomaaliya u noqotaan the face oo dalka kaleento ay nagu aamini karaan. aadaan u mahadsantihiin waana idinka mahadcelinaynaa insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.